marka oo kale oo teamkaas la rabaa inay ka shaqeeyaan wax la yiraahdo dib u heshiisiinta waa muhiim oo mar walba laga tago dib u heshiisiinta ma bilaaban dhibka Soomaaliya 91 dhibka Soomaaliya runtii marka aan sheego wuxuu bilowday 60kii oo la rabo in laga bilaabo dib u heshiisiinta dad Soomaaliyeed oo walaalaheena yaan intii dawladnimada jirta Soomaaliyeed aan takooraynin dib u heshiisiinta halkaas laga rabaa in laga bilaabato marka dadkii la dhibi jiray oo walaalaheena ahaa inaan raali galino magdhawnan siino ma aha 91kii wixii dhacay ma aha 91kii wixii dhacay waxay ahaayeen dhibkii aan bilawnay 60kii oo aan dad takoornay oo aan fursad u diidnay dhaxdeena ka bilaabatay marka wixii waa soo celin la'aanahay marka hadda marka waa inaan dadkii aan dhibnay waa isnaqaanaaye dadkaas waa beeraley waa naqaanaa dadkaas Soomaali ku dhex jiraan oo la dhibay waa naqaanaa in dadkaasi xuquuqdooda sida Mareykanka ay yeelaan oo kale affirmative action xuquuqdooda la siiyo ilaahayna ka barano inay cafiyaan aan weydiisan inay cafiyaan kadibna annagaas cafina marka